wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulanka isku duwidda u dhaxeeya wasaaradaha dowladda Jubbaland. munaasabadan ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland Xaaji Cabdiwaaxid Xaaji waxaana goobjoog ahaa maamulka gobolka Jubbada Hoose mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradaha dowladda Jubbaland maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo iyo mas'uuliyiin kale. ujeedada kulanka ayaa ahaa in kor loo qaado wada shaqaynta iyo isku dabaridka dowlad wanaagga iyo adeeg bixinta bulshada. Xaaji Cabdiwaaxid Xaaji madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland ayaana kulanka si rasmi ah u daafuray. kulankan sida ciwaanka ka muuqdo waa guddiga isku xidhka ee wasaaradaha adeeg baahinta iyo maamulka dejinta. ujeedkiisana wuxuu yahay kulankan in adeega laga qaado centerka oo loo daadajiyo ilaa heer tuula oo wasaaradaha centerka ama caasimadaha joogaan ay ka tagaan oo degmooyinka ilaa heer tuulo adeegina la baahiyo maamulkana la daadajiyo. ujeedka ugu koowaad ee shirkan kaas weeyaan. kulankan waxaa looga arrinsan doonaa insha allahu tacaala maanta iyo maalmaha soo socda in aan bal iska weydiino cashiradii aan baranay bilooyinka lasoo dhaafay shirkii hore oo inoo qabsoomay iyo shirkan maxaa khibrad oo nagu soo kordhay agaasimaha ayaa hadhow maaragtay presentationkiisa ku bixin doona insha allahu tacaala. maxaa caqabado oo nagu soo kordhay kadibna maxaan xal u heli karnaa caqabadahaas inagu soo kordheen oo ku aadan qaabka maamulka loo daadajiyo adeegana loo baahiyo. intaas ayaan haddii la yidhaaha uga hadli doonaa shirkan maanta. intaas ayuu ku saabsan yahay. waxaa la isweydiinayaa maxaa faa'iido ku jirta in maamulka la daadajiyo adeegana la baahiyo. sida ogsoon tihiin dowladda sideeda waxay ka talisaa inay u badan tahay caasimadaha. adeega maamulka markii la daadajiyo oo ilaa heer tuulo uu tago dareenka shacabka ayaa kor u soo kacaya. dareenka shacabka markuu soo kacana lahaansho shacab ayaa abuurmaya. markii lahaanshaha shacabka uu abuurmana wax isku tashi isxilqaan iyo dowladnimo wanaag ayaa meesha ka dhalaya. dowladnimada buuxdana markaas ayay dareemayaan shacabka markii tuulada lagu geeyo adeegooda ay u baahnaayeen. taas ayaana ku holanahay ka wasaarad ahaan ayna mandatekeena ama shaqooyinkeena ka wasaarad ahaan ka mid ah.